سلامك بعد وحارة وأنا نكمل هذا عليو قبلا قروح ضبطان هي مناسبات إلى هاي هي احترامك هي سود وينته وضياشي سوء بابري باهي بقر وحارة وأنا نكمل هذا عليو aad baan idinku mahad celinayaa insha Allah iyadana teedo kala waan dhigi doonaa hadii ilaahayna inta markaan ka gudbo warku haduu kaftan lahaa iyo haduu garshayaasha lahaa iyo xaaje haduu lahaa inta waa la dhameeyay waxa hadal ay dhiban oo ilaahdo ma laha hadii qabiil laga hadlay waxa la yiri 30 sano ka hor baa gooshaan oo kala wada dhigay hadday isku dirisayd hadday isu keenaysay waa la sheegay laakiin waxa saxay markii dambe warka Sambaro khalad baa ku jiray dhagneer baa saxay fariimaha kale ugu muhiimsanay dadka hal boog baa ku wada taalo meel bay soo wada taabanayaan meel la yiraahdo doorasho oo nin shaar hadda toshay iyo mid isdiyaarinaya min heer baarlamaan hadda marka laga hadlayo doorashadu kuwa ka kursiga madaxweynaha kaliya xildhibaanada oo dhan nimanka hadda la kala carabay mid bale meel baa geysanaya kursi walba nin baa ku daba qoran doorashada dadna leeyin hala dheereeyo dadna ay leeyihiin hala soo dedejiyo kuraasta oo dhan waa la isku wada haystaa dadka dhan hadda cudurka ay qandhada haysan waa doorashada waxaan rabaa inaan horta idiin cadayno shalayna golaha aqalka sare waan ka sheegay waan nimid xamar waxaan u nimid in xal la gaadho meelana ugama socono waxaan rabnaa inaan joogno inta danta Soomaaliyeed meel laga gaadhayo hadda tiraadaan dhuusamareeb hala aado kala qabtaadu way fogaanaysaa wax badan oo warana ma jiri kara halkaan muhiimada ay leedahay baa jira adeeraha jooga abtiyaal baa jooga dad xaajada galaa jooga marka qolada hadda dhuusamareeb geel baa ku xidhan leh geel idinka imanaynaay meel kastaba hala tagay muhiimadu waxay tahay danta loo yimid in la gaadho la isu tanaasulkana waxa asalka dadku waxay ku ballameen sida loogu ballamay inuu hirgalo haddii doorasho waqti lagu heshiiyey 4 sanaba inay si u dhacdo wixii farsamo ku yimaado waa sidiisa waqti hore waxaan la bilaabi lahaa haddii aan shayga xilligiisa la bilaabin oo waqti dambe la bilaabana orodku dhibaato keena Soomaalidu waxay tiraahdaa nin hulaab xubin wax qarsan baa la moodaa waxaan rabnaa cid waliba waxay qabtaan inay si cad u sheegto waxaan ka shaqeynaynaa inay noqoto mid ummadda danteedu ay ku jirto taas fariimaha badan ee la gudbinayna waan qaadnay munaasabadaha iyo maqaamyada aan tagaynana waan ka hadlaynaa asal ahaan xasiloonida siyaasaddu waxay ku jirtaa in doorashadu xilligeedu ku dhacdo sanadihii hadda la soo dhaafay isbedelka siyaasaddu sidii u socday baa dowladnimada Soomaaliyana qayb ka ahay taasi waa mid ina faran qof waliba inuu ka shaqeeyo in la ilaaliyo arrinta iyada inta aan mas'uuliyadda haynin ee xilka raadinaysa ama siyaasadda dan kalena inay ku qanacdo oo waqtiga lagu ballamay iyo say ku dhici lahayd kulli laga wada shaqeeyo wax kasto qalalaasa inuu keeni karana laga hortago qalalaasa waxa keeni kara inuu waqtigu sidiisu u dhici waayo ama asbaab cad oo la yaqaano oo maanta iyo bari iyo bardam wax isku bedelayaan wax ku darsan karaan la heli karayo waa fariinta kaliya ee qof walba maanta Muqdisho jooga ama siyaasadda danaynayay oo maanta ka shaqeynayo midka xildhibaanka wuxuu sharaf ku leeyahay inuu ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed ee wadanku meesha ay u socoto ee markaa uu ilaalin isaga mas'uuliyadiisu waxay tahay waxay la tahay taas waanu wada joognaa aan ka wada shaqeyno waxaan aad ugu faraxsanahay maanta Muqdisho inay marxalado badan soo martay waxaan rajaynayaa hadda daar aad u qurux badan baan ku jiraa
abaar fiyaad bay ahayd sidii u dundunsanaa waan garanaynaa maanta magac kale ay leedahay dorbin baa la yidhaha waa hoteel qurux badan abaartimentiyaa dhinacaas kale iiga muuqda waxaa inoo dhigan amni aan helno dowladnimada xasiloonida iyo sistamka dowladnimada stebiskiisa kusii qaadno iyo dadka oo isu uurfayo oo garanaya qof waliba meesha uu socdayo meesha laga yimid iyo taariikhdeedii uu garanayo xamar dadkii jooga way garanayaan ninka dhallinyarada habeenkii shaleen misyoona intuu ka baxo shirkol ofishaala tegaya isagoo lugeynaya oo laamiga qaadaya ama intuu liida ka soo baxo tegaya meesha ugu dambaysa wakti bay ahayd xilli bay ahayd laakiin maanta waad garanaysaano laamiyadii baa dhagxan xidhay oo waxaa yaalla road block cabsida security-ga keenaysa haddii dowlad iyo shacab laga wada shaqaynayo oo dadku ay sheegayaan dhib baa meesha ka jira oo dadku ay leeyihiin gurigan qof aan la garanaynin baa ku jira oo nooc amni iyo sistamka dawligii uu u shaqeeyo waxaan isleeyahay waan iska qaban karaa arrintaas shalay sagaashamaadkii bilowgiisii qabiil baa jiray maanta waxaan isleeyahay xataa qof xasaasiya ka qaba qabiil ma jiro caawa oo dhan waxaa lagu celcelinayaa daarood waxaa laga hadlayaa hawiye shalay hawiyena isma ogolayn daaroodna isma ogolayn soomaali kalena isma ogolayn qabiil baa halkaa kala geeyey maanta laakiin waxaa sharaf ah inaan maanta cid qof kale cuqdad iyo u qabtaay ayna jirin haddii hawiye shalay ma nabad baa ka dhaxaysay salaanta madaxweyne cali mahdi iyo cabdi qaybdiid ka dhaxayn jirtay aad bay u yaray waad ogtiin sooma kuwa daaroodka ma sidaasoo kale soomaynahayn qolon waliba iyadaa inteeda isugu filay inaan ka soo gudubno waa aad bay u fiicantay waxaa ilaahay mahadiya maanta in magac hawiye intii laysu keenay la yidhi hawiya waxaan idhi hadda markii odayaasha hadlayeen kaale ma beelbeel baa loo hadlaya ilaan liiskaan fiirinaya moota nin walba waan fiirinayay raydu ka soo jeeda inaan ogaado waa waxtar iyo wax isu ogolaansho waa wanaag halkaa aan ka sii bilowno asalkuna wuxuu yahay dowladnimada iyo noocay u socoto iyo dhaqankeeda inaynu ilaalinaa kulligaan daninoo arrinta caasimadda waa fariin hoosna la isugu dhigayo korna la isugu dhigaya muqdisho inay fiicnaato oy dhisanto oo governar ay yeelato oo lasoo doorto oo dhaqaalaheeda la yaqaano meeshuu ku baxayo oo waddooyinkeedu hagaagaan oo dadku biyo nadiifa ay cabbaan oo koronto dowladdu leedahay ay helaan oo biyo dowladdu leedahay ay helaan oo ganacsatada gacantooda intay ka baxdo milishibiya ay shaqayso oo nadaafadda ay ka shaqaysaay waa waxa ugu fiican ee caasimad laga sugayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud weyne hor fadhiyaa 2016 oo isteedyo badan iyo lidhisay waxa ugu badan laga hadlaxay baarlamaanku ha qeexo maqaamka caasimadda si sharciyadooda ay u waxaysanto maanta haddaan si dhaba idinla hadlo haddii la yidhaahdo cali iyo cumar iyo faarax maanta sidaa iyo sidaa ha la yidhaahdo wareegtana ay ku filan tahay gobanarka hebel kana ka qaad kana gee warqadaasi ay soconayso intee in la eg buu qofkaasi magaalada wax ka qaban karaa tan qof wareegto ku yimid warqad lagu soo qoray uma baahnee wuxuu u baahan yahay qof sanduuq wax loogu riday oo sharciyadu haysta ay tahay midda sanduuqa yaan lagu jahawareerinin inta wax magaratada ah yaan la odhanin hebel cali iyo cumar baa diidan war caasimadda barnaamijkeeda ansaxno oo aan u hadlo oo sharciyadeeda iyo maqaamkeeda ha cadtaado oo dadku waxa ay leeyihiin xaq ha u heleen oo culayska iyo dhibaatada maanta ku jira ha laga qaado laakiin intaasi masalada caasimadda waa inoogu filantahay waan joognaa saaxiibadayana waan sugaynaa waxaan rajaynayaa weliba saaxiibaday markay yimaadaan inaad iyagana gudashan oo kale u dhigtaan oo si fiican loo soo dhoweeyo oo xamar bay nala joogeen aan la odhanina way imanayaana gobollada ka imanayaana la keeno oo waxaad noogu shubayseen eed noo sheegayseen iyagana aad u sheegtaan
weliba sambilowsha warka la siiyo sababtaa soomaalida waxay tidhaahdaa afka waxaa la yidhi ama cali halqaha ku cuno ama sambilowsha ha ku hadlo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinka mahad celinayaa madaxweyne cali mahdi ha ugu horeeyo akhyaarta gabdhaha iyo kulligeed maryan cali umbratoriyadii waa la dhisi doonaa shaqo fiican baa la qaban doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu